السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة مركز تجوكتان سود وهذا وكسود وهذا جمع فران يا قلب فران. حدي أجنا كروسبتاي مجا جوا بارود عبد الرحمن. ما أنتوا حندوني إن إذا فائدة وعن إذا لو ذاقو ليه على مدد وأتقوا قوسن كريسيد إنه قف يحيي صاحب خيالي أو سناهين صاحب دبا. أوكي أنت هنا مجذكرين فضلا هدي أنا ولي سبسكرايب أنسين هذا السي سبسكرايب كمل كير الريح مع سند هذا هو نسكب لعننا إسلا صعب وعن نمبر 1 ما أهمت كوتا جريا أركتها النولد يو هرمك نولش هذا با إنه هوس كل ذكلي أيو جاليا لكن صاحب كدبته وكوتا جريا أو كل فرحية مركعد هرمر جالد يصدق مركعد فرحسن تابع تنوحبك وقفي عن يعتكو أقوسن كريسي قفكن مصاحبك خيالك أهبا مسمعها هدي أداركتو إسوغو أنكو دي رجالينين هدفك إناد جالد أتكو عركتد إنو هوس كوديو أغو قفكاس صاحبتي نمدي سوامد خيالي هذا لو استعماله markuu doonay inuu hoos ku dhigo oo horumarkaaga uu ka soo horjeedo hadalada uu ku adeegsanay waxa kamid ah ma sameyn karaysid taas ee iska daa sidoo kale tusaalayaal wuxuu ku soo qaadanayaa dad guul dareystay oo aan nolol fiican ku noolayn hatta wuxuu kula talinayaa inaan isku dayin oo hadhoona aad gaadid heer aad istiraadid waan isdhiibay ma samayn karo taas sida ii muuqata oo hadallo badan niyad jab ah aad isku hadashid waxaasna waxaa kuugu wacan saaxiibkaaga kiisa khiyaaliga ah ee ka fijignow. Number 2 marka uu kaa khaldamo ma aha mid kuraali gelinaya waa mid runtii isaga isla weyn laakiin saaxiibka dhabta ah uu ogyahay markuu khalad ka galo misana wuxuu jecel yahay inuu karaala geliyo. Number 3 waa qof marka aad wada joogtaan dadka xanta oo ceebahooda kaga sheekeynaya adiga dadka kale oo aan joogin meesha haddii uuba adiga markaad wada joogtaan oo xamanayo dadka kale oo ceebahooda kaga sheekeynaya maantaba adigana sidoo kale dadka kale waa kii kaga warsheekooda ee runtii ku xanta marka saaxiib fiican maaha qofkaas. Number 4 waa qof aan ku sacbinayn oo aan ku garab istaagin marka aad guulaysatid ee waa qof iska ka indha tiraya oo dhinac kale ka laabta xaqiiqdu waa qof ka xun farxadaada oo ka maseersan guushaada meeshii laga rabay inuu farxadaada dhinaciisa qayb ka qaato ayuu yahay qof ka xun oo ka maseersan. waxa ku fiican runtii inaad iska ilaalisid oo aad ka feejignaatid saaxiibkaaga kiisa khiyaaliga ah ee habku siinaya misane araxda ka jibnaya. Number 5 waa qof sirtada sheega oo dadka kale uga sheekeeya hawlaha sirta ku ah hawlaha ku gaarka ah. saaxiibka khiyaaliga ah waa mid aan tixgelin xiriirkiina mana kala jeclaa runtii farxadaada iyo murugadaada. Number 6 waa qof wuxuu ku weydiisanayaa inaad caawisid sida inaad arin aad ka caawisid oo aad wax kala qabatid balse marka adiga aad wax uga baahatid sida inaad garab ka heshid oo kale ma aha qof ku siinaya garab ee uu ku meermeerinayaa marmarsiyo kala duwan ayuu ku sheegayaa kaliya waa qoftiisa egta oo kaliya ayaa wax isku raba adigana runtii waxba kulama jecla. halkaas ayuu maanta inoogu egyahay runtii waxaan filayaa inaad ka faa'iidi doontaan insha Allah oo hadda aad si toos ah aad u taqaanid
saaxiibkaaga kiisa khiyaaliga ah. marka insha Allah wayna iyo kulanti dambe xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.